ardayahow aqoontaada kaasho waa moorta ay ku saabsan tahay faaladeena warku waana qalinka Xuseen Aadan Yuusuf Xuseen Kurdi waxa guud ahaan beddelka Soomaaliland sabtidii shalay ka bilaabmay imtixaanaadka shahaadiga ee fasalada 8 iyo 4 ee dugsiga hoose iyo dugsiga sare iyadoo uu daafuray madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi waxaana sanadkan imtixaanaadka u fadhiistay arday tiradoodu gaarayso 41,000 oo arday kuwaas oo kala 25,000 oo u fadhiistay fasalada 8 iyo 16,000 oo u fadhiistay fasalada 4 ee dugsiga sare waxa intaasi sii dheer 3,243 arday oo golaha wasiirada Soomaaliland go'aamiyeen in imtixaanaadkoodii sanadkii hore loo qiimeeyo duruufo jira awgood sida ardaydii wax ku baran jirtay gudaha magaalada Laascaanood waxbarashada Soomaaliland ayaa sanadka ka dambeeya kor u sii kacaysa iyadoo sanad kasta kumanaan arday ay ka qalin jabiyaan jaamacadaha dalka laakiinse waxa loo baahan yahay in jaamacadaha iyo dugsiyada aqoonta bixiya ay aqoonta ay bixiyaan ku daraan kulliyado lagu barto waxyaabo muhiim u ah ardayda sida aqoonta la xidhiidha farsamada gacanta aqoonta la xidhiidha beeraha iyo kuwa kale oo inta ka badan oo aanay jaamacadaha iyo dugsiyada dalka ka jira ay ahmiyad weyn siinin dawladda Soomaaliland waxa ay dadaal muuqda gelisay aqoon-yahanada dalka u soo kacaya gaar ahaan ardayda jaamacadaha dhameeyay kuwaas oo ay u sameysay barnaamijka shaqo qaran oo uu halabuurkiisa lahaa madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi barnaamijkaasi oo lagu jihaynayo ardayda waxbaratay waxaana ay dawladdu ku guuleysatay in hay'adaha dawliga ah ay ka howlgalaan halka qof kastaana uu dooqiisa ciyaaray amaba wasaaradda iyo hay'adda uu doonayo lagu qoray xataa saraakiil ciidan ayay noqdeen halka kuwa kalena wasaaradaha iyo hay'adaha garsoorka ee ka howlgalaan maanta ay ka dhex muuqdaan waa aragtay iyo halabuur micno iyo qiimo u yeelay daayartii aqoon-yahanka ahayd ee kan iyo jabsanayd mustaqbalkooda laakiin maanta iyagoo xor ah oo aan qabiil iyo ixtoon aan ku iman qalinkoodii wuxuu gooyay taas oo dhiirigelin u ah qof kasta oo aqoon-yahana sidoo kalena ay rajada noocaas ay ku xisaabtamayaan ardayda dugsiyada dhigata oo mustaqbalkoodu noqon doono kuwa qalinkoodu wuxuu gooyo intaas waxaan ku soo gabagabaynayaa faaladii warka oo uu qoray Xuseen Aadan Yuusuf Xuseen Kurdi waxaan idila soo codsiinayaa anigoo Saab Cabdi Goole